ciidamo aad u badan oo ka tirsan daraawiisha Jubbaland ayaa saaka lagu soo bandhigay duleedka degmada Beled Xawo kuwaasi oo sida ay xoguhu sheegayaan si buuxda loo diyaariyay loona dhameystiray saadkooda military. Wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa tilmaamaya in ay suurtagal tahay howlgal ciidan oo ballaaran oo ay Jubbaland ku doonayso in ay ku xoreyso deegaanada weli ay ka jiraan xiisadaha amni darro. Saraakiil sare oo la hadlay ciidanka ayaa xusay in howlgalka uu yahay mid lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka. Taliyaha ciidanka daraawiisha Jubbaland ee gobolka Gedo General Abbas Gurey ayaa si kulul u eedeeyay Cabdirashiid Janan isagoo ku tilmaamay in uu ka dambeeyo falalka amni darro ee ka taagan Beled Xawo isla markaana uu ku lug leeyahay dilalka loo geystay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada. dhanka kale taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo Cabdiqaadir Xuseen Dhagajoon oo isna la hadlay ciidanka ayaa fariin adag u diray kooxo uu ku sheegay maafiyo oo uu sheegay in laga soo abaabulay magaalada Muqdisho kuwaasi oo uu ku eedeeyay in ay horinayaan qalaaso amni. guud ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee ka socda duleedka Beled Xawo ayaa muujinaya diyaargarow xoogan oo Jubbaland ay ugu jirto sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha lidka ku ah xasiloonida gobolka. الحمد لله رب العالمين. marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan mahadnaqaynaa halkan isku kaan keenay halkan saaki waxaa taagan guutada daraawiishta Jubbaland ee degmada Barka Gedo marka Allah ka halkan aan iskugu nimaano inta kadib insha Allah waxaan iskugu nimaanay shaqo ciidan anaga waajib ciidan aan leenahay waajib ciidan aan qaadanaynaa amaamiirta madaxweynaha qaadanayna Jubbaland madaxweynaha Axmed Islaam marka insha Allah waxaan u diyaarsanahay inaan waajibka naga qaadano gobolka meel walba ay tahay maadaama ay ciidamadii maaragtay gobolka meel alla meesha waajibka nagala siiyo iyo shaqada aan leenahay inaan wajahno insha Allah haduu Ilaahay ma yadhin inta kadib waxaan rabaa hal qodob inaan maaragtay runtii aan ka hadlo in uu meediyaha maanan isticmaalaynin runtii nin aan u garanayo inuu Wagner yahay ninka oo ruushku isticmaalayo Wagner la dhaho nin maaragtaan u garanayo aniga shakhsiyan ahaan oo Cabdirashiid la dhaho in Korey oo xaaladda UK ka dhax qaylinaan maqlaayay runtii ninkaas waa nin deegaan ku dhashay gobolka u dhashay dhowr iyo 10 sano ku dhawaad xil ka hay gobolka laakiin shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo damiirkiisa ma aha mid Soomaaliyeed runtii waa nin maaragtay oo Kirista ah horgal ah la soo kireystay aanan ka talinin danta deegaankiisa iyo gobolkiisa iyo dadkiisa uu intaas madaxdu ahaa aanan ka talinaynay oo wuxuu ka talinayay ay tahay dantiisa shakhsiyeed annaga gobolka saraakiisha gobolkan xukumaysa 10 sano ka soo shaqeynaysa